shirkii wadatashiga ee daladaha aan dowliga ahayn ee Soomaaliyeed uga socday magaalada Kismaayo ayaa maalintii shalay ahayd gelinkii dambe laga soo saaray war saxaafadeed laguna dhisay dalad cusub oo ay ku mideysan yihiin daladahaasi loona yaqaano Sofensa ama daladaha aan dowliga ahayn ee dowlad goboleedyada federaalka Soomaaliya. haddaba daladan cusub ee Sofensa maxay uga dhigan tahay bulshada rayidka ah? telefishinkan caalamiga ee Ariel ayaa su'aashaasi weydiiyay Maxamed Naasir, xogayaha cusub ee daladan ahna gudoomiyaha jilayaashan dowliga ahayn ee Jubbaland Junsa. daladii la oran jiray Sofensa oo waayadii hore jiri jirtay in xilligeedii oo dhamaaday maadaama ay laba arrimoodba macquul waysan u ahayn inay sii jirto. mid weeye matalaad rasmi ah kuma haysato maamul goboleedyada ay ka hirgashay daladahan aan dowliga ahayn sida Hinsa, Gansa, Soswensa iyo Jubbaland iyo Junsa. maadaama aysan daladahaasina xubno ka ahayn aysan mataleynin ururada bulshada ee ka soo jeeda dowlad goboleedyadaasi oo horeyna la isu dhihi jiray South Central umalayn maayo inay jirayso daladaasi la yiraahdo Sofensa. madaxda kale ee daladaha sida Gansa, Hinsa iyo Soswensa iyagu ka qayb galay shirkan dhankooda siday u arkaan. waxay farxad gaar ah noo siinaysaa in maanta ay Soomaali horkac iyo horumar sii sameynayso, inay isu tanaazulayaan, waxna isku ogolaanayaan, isuna raali yihiin inay wax wada qabsadaan, taasoo ay tusayso sida muuqato in ma aragtay in liis aaminay inay bilaabatay anagoo carab dheer safar dheer ka imaanay. ma noqon shirkan shir oo dad gaar ah ama qof inuu qol iska xirtay oo wax asaga oo soo qoray oo soo baahiyay, balse wuxuu ahaa waxa inta wada joognay shir aan soo wada qodobeene laga soo wada fikiray lagu wada heshiiyay. insha Allah markaan iyo markii xigan waxaan rajeynaynaa inaan tagi doono Baydhabo, inaan tagi doono Galmudug, Hirshabeelle, Puntland, Banaadir. insha Allah waxaan rajeynaynaa inuu noqdo shirarkan isdaba joog ama socon doono wax Soomaali weyn oo dhan mirdhal u ah. marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo TV-ga Ariel oo runtii fursaddan qaaliga noo siiyay inaan maanta Kismaayo aan ku kulanno isku wareysano. runtii waxaan u arnaa shirkan guul u soo hoyatay dhammaan dowlad goboleedyada meeshan ku shiray. marka akhrisid war saxaafadeedka waxaad dareemaysaa inay jirtay horumar ay sameeyeen dowlad goboleedyada maxaan ku yiraahdaa ku shiray meeshan, inay sameeyeen tashi iyo isku kalsoonaan. intaasi kadib waxaa xigtay xaflad ballaaran oo ay xalay qabsadeen daladahan midoobay, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudane Cabdirashiid Gooni, agaasimaha wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta Aadan Faarax Gaarane, dhammaan mas'uuliyiinta daladaha aan dowliga ahayn ee ku mideysnaa dalada guud ee Sofensa iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo qaybaheeda kala duwan. dhaantada hidaha iyo dhaqanka ay Jubbaland caanka ku tahay ayaa hal mar jawiga bedelay. gabagabadii xafladda, xogayaha cusub ee daladan Sofensa ahna gudoomiyaha Junsa ayaa mar kale ku celiyay Sofensa oo ah dalad soo jirtay ilaa waagii hogaamiye kooxeedyadii inuu waqtigeedii dhamaaday. annagoo haddaan nahay daladihii bulshada rayidka ee ka jiray dowlad goboleedyada dalka, gacmahaanu isqabsannay, waxaanu ku midownay inaanu samaysanno Sofensa oo ah markii afka qalaad lagu yiraahdo Somali Federal Non-State Actors, oo ay noqonayso daladii mideynaysay dhammaan ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. taasi micnaheedu waxay tahay in daladii soo jirtay tan iyo waagii hogaamiye kooxeedyadii ay ka jireen dalka oo la oran jiray Sofensa uu xilligeedii dhamaaday, aysanna macquul ahayn ama munaasab ahayn inay ka sii jirto dalkeena maadaama aysan matalin ummadda Soomaaliyeed.
dalladaha aan dowliga ahayn ee maamul goboleedyada dalka haddana ku midoobay dallada guud ee loo yaqaano Sofensa ayaa sheegay in kulamada noocan oo kale ay sii wadi doonaan ayna ka go'an tahay inay ka wada xaajoodaan arrimaha dhabta ah ee lagu horumarinayo bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Cabdullaahi Xuseen Kilas, telefishinka caalamiga ee Ariel, Kismaayo.